بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan daawadayaasha ku xiran channelka MK channel iyo kuwan ku xirneenba waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii sharxitaanka maadada physics-ka ee fasalka form 3. waxaa inoo soo idlaaday cutub ka mid ah cutubka buugga fasalka form 3 ee maadada physics ahna cutubka saddexaad. waxaan bilaabi doonaa cutubka afraad ama chapter 4 ee la magac baxay electrostatic 2, taa oo ay ka dhigan tahay electrostatic 1 inaad kusoo baratay ama aad kusoo aragtay fasalka form 2 ee chapterka shanaad ee electrostatic 1 ah. halkana maanta ayaan ku qaadanayno chapterka afraad electrostatic 2. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka inoo subscribe garee adigoo gujinay gambaleelka like commentigana waa inoo muhiim. mahadsanid. waxaynu qaadan doonaa inta aan ku guda jirno cutubkani labada ciwaan ee aad ku waaweyn balse ay hoos imaanayaan ciwaanooyin badan. ciwaanka ugu horeeya aan rabno inaan falanqeyno iyo ciwaanooyinka hoos imaan doona insha Allah fiidiyoyada ka sameyn doona wuxuu noqon doonaa electric potential energy and electric potential difference. electric potential energy and electric potential difference bal ciwaanaha noocee hoos imaan doono. marka hore waxaynu qeexaynaa ama aynu define gareynaynaa electric potential iyo electric potential energy-ga ayaynu qeexaynaa ama aynu define gareynaynaa. kadibna waxaynu sameyn doonaa xalin ay ku xalin doono numerical problemska la xiriira electric potential iyo electric energy. si lamid ah waxaan kaloo qaadan doonaa intaan ku guda jirno cutubkani capacitors and capacitors, midxiyaasha iyo midxinta ama keediyaasha iyo keedinta ayaan qaadan doonaa. waxaynu ka qaadan doonaa iyagana sidoo kale conceptiga capacitorki capacitance conceptigooda. si lamid ah waxaan ka qaadan doonaa problemska la xiriira capacitance-ga. kadibna waxaynu qaadan doonaa energy storage capacity, enerjiyada lagu keediyo capacitorka ama keediyaha ah. gudaha ayaan sii gudagalaynaa. waxaynu maanta qaadan doonaa electric potential energy and electric potential difference. bal aynu ka hormarno electric potential difference. electric potential difference maxaa la dhahaa? waxaan leenahay electric potential difference qeextaano fara badan ayuu leeyahay, bal qeextaankan aanu qaadano. sidoo kale horta waxaa loo yaqaanaa electric potential difference waxaa kaloo loo yaqaanaa voltage ayaa loo yaqaanaa. it is external work, waa xoog dibad ama yani shaqo dibadeed loo baahan yahay to bring a charge from one location to another location in electric field. waa awood ama shaqo dibadeed loo baahan yahay in lagu keeno charge lagala soo qaado from location to another location la geeyo locationkaas oo ka jira marka electric field oo badada danabka ahi. waxaana shaqada loo baahan yahay externalka ah ee charge-gan lagu soo qaadayo electric field-gaas isagoo yaalo yani from location to another location la gaarsiinayo ayaa waxaa loo yaqaanaa potential difference ama voltage. haddii laba charges are in contact, yani markay istaabanayaan laba chargeska ama laba charges markay istaabanayaan contact ka dhaxeeyo, chargesyadu waxay bilaabayaan qulqul inay ku qulqulaan from conductor one conductor to other, yani gudbiyaha iyo gudbiyaha kale inay isku qulqulaan ayay bilaabi doonaan chargeska. electric conditionka xaalada electric ah determine ee go'aaminaysa marka inuu qulqulo charge-gaasi from conductor to another conductor-ka uu ku qulqulayo markay istaabtaan scolet ayaa waxaa loo yaqaanaa electric potential ayaa loo yaqaanaa. waxaana laba shay oo chargereysan haddii ay contact sameeyaan, chargesyadu waxay sameynayaan inay gudbiyaashu ay ku kala gudbaan oo flowing ama qulqul ku sameeyaan. haddaba xaaladda kadamika noocaas oo kale ah waxaa go'aaminaya marka qulqulka charge-ga from conductor to another conductor-ka in contact ayaa waxaa loo yaqaanaa marka electric potential. maxaa kaloo ku qeexi karnaa electric potential ama voltage? waa difference, waa farqiga in a potential energy ee tamarkeedka per unit charge. waa farqiga tamarkeedka ama isbedelka leh ama change ama difference faraqa ama farqiga ama faraqa potential energy tamarkeedka per unit charge-giiba between udhexeeya locationsyada in electric field ee badada danabka markaa ku xindaaban ayaa waxaa loo yaqaana marka electric potential. bal qaacidadan isla fiirno. electric potential waxaan dhahnay waa potential energy per unit charge, yani waa tamarkeedka charge-giiba ayaa waxaa loo yaqaanaa potential energy.
taa macnaheedu tahay markaan hadda potential energy hadda waxaa loo soo gaabiyey B iyo E ayaa potential energy la soo gaabiyey mar waxaa jirta loo soo gaabina marka U haddaba U capitalka waa potential energy way la mid tahay soo same waaye sampleka V waxay la mid tahay marka U oo loo qeybiyey Q ayaa la mid tahay then haddii aan rabno U inaan helno marka U waxay la mid noqonaysaa marka V oo lagu dhuftay Q V maadaama si isweydaar la iskugu dhufanayo V oo lagu dhuftay U haddii janji ay tahayna janji V oo lagu dhuftay Q okay potential difference waa scalar quantity xaddigiisa waa scalar quantity waa xaddi foolwaa ah oo aan leeble ahayn taa macnaheedu tahay jiha ma leh haddaba SI unitkiisu waa joule per coulomb SI unitkiisu waa joule per coulomb SI unitkiisu waa joule per coulomb waayahay markii when the external force does work ama does a work in a moving a charge Q from A to B its potential energy increases from low U sub A to high value hence work done WAB is a change in the electric potential energy markii xoog dibadeed ay sameyso shaqadaasoo moving gareynaysa chargiga Q-da ah kana soo qaadaysa bar A gaarsiinaysa marka bar B potential energy-gu wuxuu sameyn doonaa increase waa uu ziyaadaya isagoo kasoo ziyaadaya marka from low oo waxa potential energy sub A ah iyo to high oo gaarsiinayo U sub B ah so sida awgeed potential energy-ga ama shaqada la qabtay waxay la mid noqonaysaa marka janjiga ku dhacay potential energy-ga janjiga ku dhacay tamarkeedka ay noqonaysaa tamarkeedka janjiga ku dhacay oo ah high potential energy-ga high energy potential energy oo laga jaray low potential energy-ga si aan u helno marka janjiga ku dhacay haddaba janjiga waxaan kaloo u qori karnaa markii qaybtan noocan oo u yaalo waxaan u qori karnaa change U waa u qori karnaa okay sida awgeed waxaa leenahay marka since maadaama wooga loo isticmaalo externalka ah is equal wuxuu la mid yahay marka the change in the potential energy waa isbedelka ku dhaca tamarkeedka in of the situation is conservation system then yani qaabkii oo badqabka systemyada yani markaas conservationka ama conservative-ka badqabka iyo energy-ga ee baabeeyna ahaa ay ku dhismaysaa marka oo work externalka ay la mid tahay in isbedelka ku dhaca potential energy-ga waayahay isbedelka sida hore aan soo sheegnayba waxaan u qor karnaa dhahnay delta U ayaan qor karnaa taa oo la mid ah marka high potential energy-ga B ah oo laga jaray initial low potential energy-ga ee noqonaya waayahay waxaan ognahay U ama delta U inay la mid tahay Q oo ku dhacsan V waa qaacidada marka koowaad aan kasoo hadlaynay ileen V waxay la mid ahayd ileen potential energy-ga potential difference wuxuu ahaan dhahay electric potential difference wuxuu la mid ahaan dhahnay waa potential energy per unit charge haddaba marka potential energy marka meesha kasoo helayna waa charge-gii iyo Q-da ama voltage-kii oo la isku dhuftay then anagoo marka la ku dabaqeyno oo haddii aan soo sheegnay in work externalka uu la mid yahay isbedelka janjiga ku dhaca work energy-ga then haddaba work iyo janji L haddii mar isla mid yihiin isla mid ah work energy-gana isla qaacidadan ayaa lagu helayaa okay sida la mid ahna delta V waxaan kaloo u qori karnaa VBA u qori karnaa okay then waxaan sameyn doonaa marka VBA waxa oo lagu dhuftay marka sida aweed marka work externalkana waxay la mid tahay work externalka A to B waxay la mid noqonaysaa marka VBA taa oo macnaheedu tahay marka VB oo laga jaray VA ay la mid noqonaysaa marka janjiga wax ku dhacay way hadda aan ku siinay qaacidadan work qaacidadan sababta u siinay maxay tahay hore waxaan soo sheegnay work externalka oo loo adeegsado inay la mid tahay potential difference maadaama qaacidadan potential difference ay la mid tahay potential difference oo work la mid yahay hadda workna qaacidadan way qaadan kartaa oo ay la mid tahay then waxaan sameynaa marka work inay la mid tahay work shaqada la qabtay shaqadaasoo charge-ga laga soo qaaday from A lana gaarsiinayo to B la gaarsiinayo it is potential energy-ga oo ziyaadayaan dhahnay sida aweed work dhanka waxay la mid tahay dhahnay waa janjiga ku dhaca potential energy-gi waxaa lagu helaa dhahnay charge-gii oo lagu dhuftay delta V then maadaama potential energy janjigiisa uu la mid ahaa work externalka hadda work externalka from A to B da waxay la mid noqonaysaa marka Q oo ku dhacsan VBA waayahay therefore marka in VBA is the ratio maadaama ay tahay ratio work dhanka saamiga work dhanka to the magnitude of the charge magnitude charge-ga ana ku dabaqeena
halka v sub b ay tahay voltage-ka point b, halka v sub a ay tahay voltage-ka point a. haddaba waa v sub a ay tahay voltage-ka barta a. waayahay potential difference ayaynu haddana qeexi doonaa mar labaad. potential difference-ga between u dhexeeya 2 points laba barood in electric field la yaala marka badada danabka majaalka danabka yaala. Defined waxaynu ku qeexinaa as the work required, shaqada loo baahan yahay to move in lagu dhaqaajiyo a unit positive charge test charge, positive charge in lagu dhaqaajiyo laga soo qaado from point to lower potential to the higher potential. warkii haddaynu soo sheegaynay baynu dib ku soo celinay. waxaan dhahnay marka potential difference-ga oo laba barood ah ee fieldiga electric fieldiga yaala waxaa lagu qeex karaa shaqada loo baahan yahay in lagu dhaqaajiyo charge-ga lagana soo qaado point oo lower potential lana gaarsiiyo point oo higher potential waayahay waxaad nood galaysataa marka in potential difference-ga uu lagu cabiro ama uu yahay volt adoo loo soo gaabiyo v tahay. potential difference waxaa kaloo loo soo gaabin karaa bd. potential difference waxaa kaloo loo soo gaabin karaa bd ayaa loo soo gaabin karaa. waayahay example-ka ugu horeeya ee 4.1 ee cutubka afraad example-kiisa ama tusaalihiisa koowaad waxay u dhexaysaa sida tan. A charge of 10 coulomb is brought from infinite to a point near a charged body and this process 200 joule of work is done. Calculate the electric potential near to the charged body. And charge dan 10 coulomb. Charge in coulomb lagu cabiro iyo waxyaabahaas oo idil hore usoo baranay oo cutubkii noogu soo dhamaaday ayaan kusoo baranay. Even xitaa form 2ga chapterka shanaad ayaa xitaa lagu bartaa oo charge in lagu cabiro coulomb sidoo kale. dib haddaa u laabataan oo buuga form 2ga dib u fiirisaan iyo form 3gana aad akhrisaan dirbadiiba waxaad hore ka fahmi doontaan inay dhammaantood isleeyihiin oo xiriir ka dhexeeya. maadaama ay xiriir ka dhexeeyaanna haddii aad arday jecel waxbarashada tahayna waxaa qasabka ugu noqonaysa midkaas inaad baadi goobto dib ugu laabato midkaana sidoo kale oo hadda aad wadatana aad si tartiib aad ugu sii wado insha Allah. waayahay waxaa lagu yiri marka 10 coulomb oo charge ayaa waxaa laga keenay from infinity point laga keenay oo u dhow shay charge-raysan. process-kan wuxuu ku dhacayaa ama waxaa lagu qabtay 200 joule oo shaqo haddaba soo saar electric potential near the charge body. electric potential-ka u dhow shayga charge-raysan ayaan rabnaa inaan soo saarno. solution given-keena waxaynu haysanaa charge oo 10 coulomb hadda bedel nooma baahno oo micro maahan 10 coulomb kaliya. waxaan kaloo haysanaa shaqadii la qabtay oo 200 joule waxaan raadinaynaa marka potential difference ama electric potential oo v electric potential oo v ayaan raadinaynaa. okay electric potential-ka wuxuu la mid ahaa sida caadiga work oo loo qeybiyay q, halka markii hore aan soo qaadanay electric potential-ka inuu la mid ahaa u oo loo qeybiyay q. maadaama aynu dhahnay change u ama change potential-ka wuxuu la mid yahay work ayuu la mid yahay, taas waa marka qaacidadan aynu qaadanay oo la mid ah w oo loo qeybiyay charge-ga. haddaba charge-ga waxay la mid tahay ama 10 coulomb work done-kan waxay la mid tahay 200 joule. 200 joule oo work done haddii loo qeybiyo 10 joule waxay la mid noqonaysaa durbadiiba waa 20 volt maadaama voltage-ka lagu cabirayo ama electric potential-ka lagu cabirayo volt. electric potential-ka hore waxaan ugu soo qeexnay inay tahay waa potential energy per unit charge. taa potential energy change-ga ku dhacana maadaama ay work done ay tahay, taas waa markaynu leenahay marka work done shaqada loo baahan yahay in lagu soo dhaqaajiyo charge-ga lagana soo dhaqaajiyo bar a lana gaarsiiyo bar b ayaa waxay noqonaysaa marka 20 oo v oo volt waayahay example-ka 4.2 ama u dhiganta marka cutubka afraad tusaalihiisa labaad waxay u dhacaysaa sida tan. how much work is done. shaqaynta leeg ayaa ay u badan tahay in la qabto in moving si loo dhaqaajiyo charge dhan 2 coulombs iyadoo laga soo qaadayo bar oo 118 volt lana gaarsiiyo bar oo 128 oo volt hore waxaan sheegnay barta laga soo dhaqaajinayo waa lower point halka la gaarsiinayo waa higher potential different. waayahay
waxaan halkaa ku haysanaa oo given ah wax loo yaqaano charge oo 2 coulomb aan haysano. waxaan kaloo haysanaa barta koowaad ee voltiga oo aan haysano 118 oo volt ah, barta b oo aan haysano 128 oo volt ah. su-aashana la weydiiyay calaam su-aal noo saarnay ee tahay work done in la qabto shaqada la qabtay lagu dhaqaajiyay 2 coulomb charge lagana soo dhaqaaqay bar oo 118 volt ah lana gaarsiiyay bar oo 128 volt ah. haddaba work done waxay la mid noqonaysaa W waxay la mid noqonaysaa V oo lagu dhiftay Q. horena waan usoo sheegnay V maadaama qaybtii U da booska ay noo taagan tahay U na ay la mid ahayd VQ, halka W na ay la mid noqonayso marka V oo lagu dhiftay Q. V dii waxaan haysanaa oo laba bar ayaan haysanaa. haddaba si aan V si toos u helno ama janjiga ku dhaco helno, waxaanu kala jaraynaa barta oo A la gaarsiiyay to B ah, waxaan kala jari doonaa marka VBA oo laga jaro marka VA. then waxay la mid noqonaysaa marka VAB waxay la mid tahay marka 128 oo volt ah oo laga jaro marka 118 oo volt ah. then waxaynu helaynaa marka 10 volts. hadda waynu raadin karnaa voltage-ka ama work done-ka. work done waxay la mid tahay voltage-ka oo lagu dhiftay Q. voltage-kii caadiga ahaa janjiga ku dhacay waxaanu haysanaa 10 volt lagu dhiftay charge-gii lagu dhaqaajinayo ayaa waxaan haysanaa marka 2 coulomb. bartiiba marka aan isku dhufano work done-ka wuxuu noqonayaa 20 joule ayuu noqonayaa. waxaanu raadinaynay shaqada la qabtay ee lagu dhaqaajinayo charge 2 coulomb ah lagana soo dhaqaajiyo potential difference bar dhan 128 lana gaarsiinayo bar dhan 128 volt. haddaba waxay noqotay marka 20 oo joule ah. way example-ka saddexaad ee cutubka afraad waxa uu dhacayaa sidatan. an electric charge saldanab dhan 3.2 times 10 to power minus 19 coulomb ayaa waxaa la dhigay bar A kaasoo voltagekiisu yahay 10 volt. raadi su-aasha koowaad electric potential energy laga rabaa oo bar A ah. labo waxaa raadinaysaa xooga ama awoodda wooga shaqada lagu push gareeyay charge-ga iyadoo laga soo qaaday A lana gaarsiiyay B adigoo voltage-ka B u qaadanaya marka 20 oo volt ah. okay then waxaa raadinaysaa janjiga ku dhacay potential energy-ga charge-ga when markii laga soo dhaqaajiyo from A to B markii laga soo dhaqaajiyo. waa 3 su'aalood oo is agyaal jawaabteedana aan ka doonay. okay waxaan haysanaa given waxaan haysanaa charge-ga oo aan haysan 3.2 lagu dhiftay 10 ku jibaaran minus 19 coulomb. waxaan kaloo haysanaa barta A oo voltage-ka A ah waxaan haysanaa 10 volt si la mid ah voltage B na waxaa haysanaa 20 volt. su-aasha ugu horeysa ee aan baadigoobayno waxay noqonaysaa waa potential energy ama electric potential energy of a charge at the point A. waayahay iyo work done shaqada la qabtay isla mid ah changing potential energy-ga ayaa la iska rabaa. okay waxaan leenahay marka changing potential energy-ga oo potential energy-ga koowaad ama A waxay la mid tahay Q oo ku dhacsan V sub A. Q oo ku dhacsan V sub A. waayahay Q oo ku dhacsan V sub A maxay la mid tahay marka Q meeqa haysanaa. haddaba Q waxaan haysanaa 3.3 ayaan haysanaa. aan ku bedelino 3.2 lagu dhifto 10 ku jibaaran minus 19 coulomb markii lagu dhifto voltage-ka A oo aan haysano 10 volt waxay la mid noqonaysaa waa 3.2 lagu dhifto 10 ku jibaaran minus 18. haddii point-ga bartan aan keeno halkan waxay noqonaysaa minus 19 ayay noqonaysaa haddii bartan inta keeno leena marka inta usoo wadaba waxay noqonaysaa hal ayaa jarmaya. okay halka jarmaya maadaama kor uu minus saaran yahay labadaba isku darsamayaan minus 19 ayay noqonayaan. okay su-aasha xigta waxaan rabnaa marka wogna sida yaa lagu helaa oo qaacidadii ah balse waxaan ku dabaqaynaa marka bartii laga soo qaaday lana gaarsiiyay barta kale. okay VBA waxay noqonaysaa marka B oo laga jaro marka voltage ama voltage B oo laga jaro voltage A ku dhacsan marka Q qaabkaas u sameysmaysaa. voltage B da waxaan haysanaa higher location point-ga ah waxaan haysanaa wax gaaraya 20 halka BA na waa haysano 10 Q na waa haysano inta ama qaybta ujeedaan oo gifinka kornaga muuqata.
markii aan ku badalno tiradii markii aan kala bedel labadana 10 aan soo baxayso isla sidii jawaabtii ayaa soo baxayso labada markii kala jira 10 soo baxayso isla tiradii ayaan rabnaa inaan ku dhufano marka durbadii waxa soo baxayso isla jawaabtii oo kale oo hore aan u soo saarnay oo ah voltage-kii ama potential energy-ga waayahay hadda waxa ay nala diray marka janjiga potential energy-ga markii bounty A laga soo dhaqaajiyo to B la gaarsiiyo okay janjiga wuxuu la mid ahaa potential energy-ga B oo laga jaray potential energy ama si kale aan u dhahno higher potential energy oo laga jaray lower potential energy higher potential energy-ga maadaama la mid tahay maadaama hadda aysan iyaduna si toos u raadin laakiin hadda waxaan haysanaa lower potential energy-ga ayaan haysanaa oo bar A ah bar B maadaama aan haysanay bar B isla qaabkan ayaa lagu marayaa laakiin barta ayaa waxay isku bedelaysaa marka B then bal qaacidada aan si habeeno waxay noqonaysaa marka potential energy-ga oo yani bar B ah waxay la mid noqonaysaa sina Q oo ku dhacsan voltage bar B ah oo laga jaray sidoo kale potential energy bar A ah asina waxay la mid tahay marka wax loo yaqaan Q oo ku dhacsan voltage-ka oo sub A ah markaan fiiriso labadani common factor ka baxayo oo Q ah Q laga saaray oo common factor lagu bixiyay meesha waxa ku haray VB oo laga jaray V sub A markii tirooyinkooda aan ku bedelno V sub B waxaan haysanaa waa 20 oo volt ah halka V sub N oo haysano 10 oo volt ah then markii labadooda aan kala jarno waxa soo baxay waa 10 charge-ga tiradiis markii aan ku sii dhufanana waxay noqonaysaa isla tiradii oo hore aan ugu soo saarnay ay soo baxayso oo 3.2 lagu dhufto 10 ku jibaaran -18 oo joule ah ayaa soo baxaysa aad ma santiin dhageysiina wacan iyo daawashadiina qaaliga ah fadlan haddii aad ku cusubtahay channelka inoo subscribe gare adigoo gujinay gambaleelka like commentigan waa inoo muhiim mahadsanid